markuu horeysa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo anigoo ka faa'iideysanaya fursadan dadka soo qaban qaabiyay barnaamijkan aadam ogaasi axsaabtiisa oo sanadkii labaad halkan lagu qabanayo barnaamijkan qiimaha badan runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aniga oo ku hadlaya magaca jaaliyadda Minnesota iyo jaaliyadda sportiga dhammaanba marti sharafta nooga kala yimid North America markaan si gaar u tilmaamo Toronto Atlanta Georgia iyo Washington DC runtii aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa aniga oo ku hadlaya magacooda sida aan ognahay marka aan wax yar soo koobo sportiga Soomaaliyeed sportiga Soomaaliyeed runtii muddadii uu jiriyay waxa uu ku tallaabsaday runtii guulo aad u waaweyn oo runtii la tilmaami kala qaarkood markii aan wax yar ka taabto sida kubadda cagta oo kale kooxdii caan baxday ee la oran jiray Horseed oo runtii macalinkoodii halkan uu nala joogo macallin Ibrahim Suudani waxay ahaayeen kooxaha kubadda cagta ee ka tilmaaman geeska Afrika oo iyagu guulo runtii aad iyo aad u weyn ku tallaabsaday muddadii runtii wadanka uu nabadda ahaa waxa kale oo jiray iyadana ciyaaraha nooca loo yaqaano athletics ama orodada in Soomaaliya ay guulo badan ay gaareen waxaan tusaale wanaagsan u soo qabsan karnaa aliyagii boodada sare ee la oran jiray Cabdulla Nuur Waasuge oo isagu ku guuleystay kaarintii koowaad ee bilada dahabka waliba 2 jeer oo ku guuleystay waxaan kaloo soo qaadan karnaa ciyaaryahanadii orodada ninka la dhigi jiray Jaamac Karaaceen oo isaguna 3 jeer ku guuleystay bilada dahabka isagoo ku orday magaca Soomaaliya sidoo kale waxaa tusaale isaguna aad iyo aad u wanaagsan ahaa ninkii indhaha adduunka ku soo jeediyay Soomaaliya ee la oran jiray Cabdi Bile Cabdi oo isagoo 1500 mitir ku guuleystay dhanka kubadda kolayga ayaan waxaan oran karaa iyaguna Soomaaliya waxay ahayd wadamadii ugu wanaagsanaa ee kaalimaha koowaad kaga jiray wadamada Carabta iyo Afrika waxa tusaale inoogu filan in xulkan qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga uu ku guuleystay kaalinta koowaad ee bilada dahabka sanadkii 1979 ciyaarihii jaamacadda Carabta sidoo kale in kaalinta saddexaad ay galeen ciyaarihii All African Gameska ee lagu qabtay Muqdisho marka sharaf weyn bay u ahayd kooxihii kubadda kolayga Soomaaliyeed in stage-ka noocaas ay gaaraan intii dagaalada uu jiray dagaaladii sokeeye dadka Soomaaliyeed kama aysan daarin in ciyaaraha ay ka qayb galaan inkastoo wadanku dagaal isaga jiray dhibaatooyin fara badan ay jireen haddana waxaan xusi karnaa in kooxdii kubadda kolayga ee Garowe City ku ciyaaraysay kubadda kolayga magaca Soomaaliya in kaalinta labaad ay ka galeen ciyaarihii kubadda kolayga ee bariga ee bartamaha Afrika sidoo kalena in kooxdii Muqdisho City oo iyagu u badnaa dhalinyaro yar oo halkan ka tagay waliba gobolka Minnesota inay kaalinta saddexaad ka soo gaareen ciyaarihii bariga ee bartamaha Afrika markaad eegto Soomaaliya waayidii barsamaadkii waxaan lahayn garsooreyaal runtii xataa ilaa heer caalami ah oo gaaray heerka FIFA kubadda cagta iyo heerka FIBA la yiraahdo oo ah Federation International Basketball waxaana markaa halkan runtii aan ka xusi karaa garsoore caalami ah halkan caawinara jooga macallin qolof ninkan odaga wuxuu kamid ahaa garsoorayaashii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee qaatay shahaadada Beijka ee FIBA macallin qarindi ayaa asana kamid ah halgamayaashii sportiga Soomaaliyeed oo isaguna guulo badan ku tallaabsaday oo aan dhihi karo waxa uu ahaa macallinkii ugu koob fara badnaa ciyaarihii laga ciyaaray wadanka Soomaaliya aan oran karo waliba hadda caawa waxa martino xataa ciyaartooydii uu soo saaray oo mataqana stage wanaagsan uu soo gaarsiiyay oo Afrika iyo Soomaaliya ay kamid yihiin runtii asana magac weyn buu ku lahaa sportiga Soomaaliya Farax Jaamac Nuur Farax Oday waxa uu kamid ah ciyaartooydii xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga waqti badan aan wada ciyaarnay haatanna waa madaxa xiriirka Soomaaliya kubadda kolayga ee ciyaaraha nationalka waliba waa dadka barnaamijka ka diyaariyo ciyaartooyda Abdi Yusuf ninka geeska xiga waa gudoomiyaha wakiilka Olombikada Soomaaliyeed ee America waa intii
labadan inuu geeska xigta qaliif riiko ninka yiraahdo qaliif gacanta u taagay dadka ku arkaan si fiican haday waa dhuumaneysay qaliif riiko iyo muqtaar cuti oo sanad xiga dhinaca kale xiga waxay ahaayeen dadka ugu xirfadda wanaagsan ee kubadda cagta Soomaaliyeed runtii kaalin weyn ka soo qaatay magac weyn gaarsi Soomaaliyo ayaa sana kamid ah ciyaartooyda kubadda cagta oo isagoo magac weyn ku lahaa Soomaaliya gabdhahan aad arkaysaan marka halkan ka bilaabo fartuun heer oroda ay ku jirtay xataa iyo basketball haatan waa macallimad kubadda cagta kubadda kolayga marka ma sha Allah gabdhii Soomaaliyeed Mariam Guri ayaa idin kamid ah gabdhii xulka qaranka Soomaaliya kubadda kolayga gabdhaha gadaal ku dhuumanayo Nimca Kenyaati Gani Xasan Nuur iyaguna waxay kamid ahaayeen gabdhii kubadda kolayga Soomaaliya waxaan rabaa iyadana inaan wax yar aan sheego Aweys Muuse Arbow daafici adkaa ee kooxda Horse sanadka hor halkan dadka lagu aalmariyay ayuu ku jiraa Aweys marka waxaan u meenay soo rigeysana aad baan u heenay macalinkiisa macalin Suudaan caawa sharaf been oo tahay in la joogo ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan tilmaamo laba nin oo iyaguna caawada martida kamid ahaa Abdullahi Saeed Maxamuud Xaaji Nuur أو سعيد أو ما أعرف سعيد أوكي سعيد محمود حاجي نور يا عبد القادر عبد الله سعيد عبد القادر مغيان لبض وحكم ديهين دتك سبورتيغا هل دور كوه أو ولي لف دبر كوه واشنطن دي سي معموليات شو رنتي إجانا رنتي أبي وشرف بدي أنت أسد بديت وأن كسر هذا السبورت الصومالي تقولي وكنت لابس هذا جبنا هذا مركان سوق جابي ما علي أي أسنة جوجا ومعلن كي يجوري كبض كوريا صومالي أنت أسد بديت مركان سوق كوبو سبورتيغا الصومالي تقولها سبادن أوجاري faraha badna ayaan caawo waxaan ka soo xuranay mid kamid ah halyeeyadii ugu qaalisanaa ugu magac dheera oo xiliyadii bilowga kubadda kolayga xilligii dhexe oo aniga aan kamid ahaa ee xilligii haddaba ku dhex jiray sportiga oo aan ka daalin macallinna ah runtii oo aan oran karno wuxuu kamid ahaa halyeeyadii keenay bilad dahabka ee Soomaaliyeed marka waxaan jeclaan lahaa jaariyada Minnesota iyo jaariyadaha kale dhamaantoodba iyo baahda sportiga inaad ila soo dhaweysaan halyeeygaasi Axmed Daahir Axmed أحمد داهر أحمد وحاو كل شيء مجالة بوساسو سنة كمركا كوني سجال بقوليو كنتني سجال كي لا بس أنا جركيس أيوه وحوس وريجي مجالة مقدشو هالكاسي أيوه نكبل لابي دوكسي سقرانك وحبرسي سي دوكسي هوسة وحاو كذا بحي دوكسي حمرجة دوكسي دحنا كمرشالو دوكسي سرنا وحاو كل ما يستي دوكسي الأورنج الشيخ حسن برساني مركي ويميد دل كان مريكن هالكاس أيوه كسي وحبرسي سي isaga oo markaasi ka qalin jabiyay macadka Global Institute College oo uu ka takhasusay maadada cilmiga jimicsiga jirka ee loo yaqaan physical education sportiga ayaa waxa uu bilaabay isagu aad iyo aad u daayar oo aad iyo aad marka uu jeclaa kubadda cagta ayuu ciyaari jiray degmadii Xamar Jajab dabadeedna kubadda cagta ayuu ku bilaabay dabadeedna waxa uu soo wareegay yararka ee mini basket ee degmada Xamar Jajab waxa kale markaas uu ciyaaray ciyaarihii dugsiyada halkaas oo ahayd meesha laga qaatay oo dharisay in uu ku biiro ciyaartooydii heerka koowaad ee wakaaradii ganacsiga ummadda Angel loo yaqaan Axmed Daahir Axmed waxa uu carab ku dhuftay markiis ugu horeysay sportiga inuu u bilaabay nin la oran jiray Cabdullaahi Diiriye Jaamac oo loo yaqaan Cabdullaahi Dibutaati oo hadda ku nool Canada 1975 ilaa 1979 ayuu ka tirsanaa naadigii la oran jiray Angel لكن ناديجاسي أو إيجوجن عيارتي رنتي آدي آد ونكسنا وكمدها موسى فارح شينا جهاد نور حاجي الله نحرسه عبد الله جامع ديبوتاتي نفتي سواهنك وبالأبي عبد فري محدين حيري مدرسي أو عيار ناديجاسي وح جوله أو مركزي جارين ما يسنجرين لكن كون إسرائيل بقول سيدتك إلى سيد اللي حدنك أيوري كوحدي كبض الكوري عيدا من الغلب كسيدة أو لو يقاني هرسي أو كتر سنة muddo runtii aad iyo aad u dheer isagoo markaas ku guuleystay 2 koob oo horyaal ahaa iyo 2 koob oo General Daawud ah iyo koob munaasabado oo aad u farbadnaa waxa kale oo isagoo u sii dheeraa Axmed guulahaasi uu gaaray inay ahaayeen guulihii ugu waaweynaa oo ay gaartay kubadda kolayga Soomaaliyeed sanadii 1979 iyo 1980 soo 1979 أحمد وحو كمد حلقي قرنك الصومالي ugu horeeyay
oo iyagu ku guuleystay bilada dahabka oo u soo hooyay magaca Soomaaliya meel weyn gaarsiiyay bilada dahabka kaalinta ku ciyaarayay jaamacadda Carabta sidoo kale 1981kii xulkii qaranka Axmed oo ka tirsanaa waxa ay ku guuleysteen kaalintii saddexaad ee ciyaarihii loo yaqaanay All African Games oo ku tartamayeen wadamada Afrika guud ahaan stage aad u fiican ayuu ahaa isaga naftiisa Axmed Daahir Axmed waxa uu ka qayb galay ciyaaro aad iyo aad runtii u fara badan oo lagu qabtay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxa uu la ciyaaray kooxo aad u fara badan kooxahaas waxa ka mid ah Kenya, Djibouti, Egypt, Sudan, Congo, Algeria, Morocco, Libya, Central Africa, Senegal, Ivory Coast, Mauritania, Guinea, Zaire, Tunisia, Zimbabwe, Angola, Rwanda, Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Bahrain, Syria, Iraq, Yemen, Koonfureed iyo Yemen Cadmeed markaas laba ay kala hayeen Falastiin iyo wadanka Jordan sidoo kalena waxa uu ka qayb galay ciyaaro saaxiibtinimo ah oo lagu qabtay wadanka China iyo wadanka Italy waxa kale oo la ciyaaray koox ka socotay jaamacadaha Mareykanka oo la oran jiray Atlanta Georgia ka socday oo markaas yimid magaalada Muqdisho 1978kii wuxuu Axmed Daahir Axmed ciyaaraha ayuu ka fariistay oo dhaawac jilibka ka soo gaaray awgees ayuu u fariistay waxaana uu ku wareegay dhinaca tababarnimada oo ku dhex jiray ilaa iyo wadankii uu burburo ilaa haatan aan oran karo magaaladan uu joogo Minnesota waa uu wada tababarkii caruurta 1980kii muddadii markaas uu macalinka ahaa ayaa kooxii uu leeyahay waxay ku guuleysteen guulo fara badan 80kii ciyaarihii gobolada Soomaaliya ayuu macalin u noqday wiilashii kubadda kolayga ee bari waxaana ay galeen kaalinta afraad iyadoo markaas lagu reebay ciyaarihii wareegoodii ugu dambeeyay 1968kii ciyaarihii gobolada oo uu tababar u ahaa gobolkii la oran jiray markaas waqooyi galbeed waxaana ay ku guuleysteen kaalinta labaad 1984kii 85kii 86kii 87kii gabdhihii kubadda kolayga naadiga Horseed ayuu macalin u ahaa waxaana ay ku guuleysteen horyaalkii dalka koobka ee General Daawud iyo koob munaasabado oo markaa aad iyo aad u fara badnaa 1989kii koobkii horyaalka ayay ku guuleysteen wiilashii naadiga Horseed sidoo kalena 90kii oo ahaa ciyaarihii ugu dambeeyay ee laga ciyaaray wadanka intuusan dagaalada burburin galin dagaaladii sokay uusan galin waxay ku guuleysteen kooxdiisii wiilashii kubadda kolayga ee Horseed kaalinta koowaad sidoo kale Axmed waxa uu soo leeliyay kooxaha dibadda ah oo ay ka mid yihiin koox la dhihi jiray Bamburi oo iyadu ka tirsan Mombasa Kenya intii aan qaxootiga ahayn anigu kooxdaas waa ka mid ahaa Soomaali Axmed kooxdaas oo ka mid ahayd kooxihii hoose oo heerka hoose ku jiray waxa uu soo gaarsiiyay heerka koowaad muddadii Maxamed Axmed uu ku sugnaa dalka Mareykanka gaar ahaan kubadda kolayga waxa uu qayb weyn ka qaatay ilaa haddana uu u taagan yahay horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku howlan kubadda kolayga isaga oo xubin firfircoon ka ah ururka horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo loo yaqaan Saydom sidoo kalena waa tababare caalami ah oo ka howlgala dugsiga sare ee Metro Schools maruu Axmed ka hadlayay sida ugu habboon ee loo horumarinayo kubadda kolayga Soomaaliyeed ayuu sheegay in Soomaaliya laga heli karo dhalinyaro khibrad aad iyo aqoon wanaagsan u leh kubadda kolayga haddii marka loo dadaalo oo la isku xilqaamo si daacad ahna looga shaqeeyo sidoo kale waxa ku guwaabay dhalinyarada inay ku dadaalaan si loo gaaro mustaqbalka in la helo ciyaartoy wanaagsan oo gaartay ilaa iyo heerka NBA-da ugu dambeyntii Axmed waxaan aaminsanahay anigu qof ahaan inuu yahay mid ka mid ah shakhsiyadii ugu magac dheeraa ama taariikhda kubadda kolayga marka laga hadlayo noogu magac wanaagsanaa inuu ahaa marka waxaan leeyahay Axmed hawshii aad u qabatay dhalinyarada iyo midda hadda u haysidba iyo midda wadanka u soo qabatay ilaahay ajir xasanaad Allah ka siiyo cimri dheer cibaado suban ayaa ilaahay kaaga bareynaa intaas ayaan kusoo koobay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahana kulmiyey oo caafimaadkana siiyey ayaan marka hore u mahad celinaynaa oo naga mudan marka labaadna waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladan oo ayna qurux badnaateen haddii aydan idinku joogin iyo ugaaska oo runtii iyo dhalinyarada la qaban qaabisay oo u baahan asaga laftigiisu in la xuso oo barnaamijkan barnaamij la mid ah ama ka qurux badan loo sameeyo runtii marka war badan waxaan u malaynayaa uma baahnina waa waqti dambe
إن شاء الله تعالى سنة كالدنبي إلهي عافمادها نوغارسيو وحنا رجينا إن لغا سو ودا قيب قالوا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.